maanta qabaa'ilkan Soomaaliland degan hadduu harti yahay iyo hadduu isaaq yahay iyo hadduu gadabiirsan yahay boqolkiiba 90 waxay ka farcameen beeshan boqortooyada magaadle boqortooyadii Soomaaliyeed ugu horeysay ee in badan soo talinaysay ee boqorro badan iska dhaxleen boqortooyada magaadle waa taariikhdiinii waa magaciinii waa tii aad ku faan lahaydeen waa halgankiinii maanta reer Sheekh Saxaaq reerka la yiraahdo taariikhdoodu dee boqortooyadan maanta anigu aan hayo waa boqortooyo idinka taariikhdiina oo maanta aad ku faan lahaydeen oo aad ilaashan lahaydeen oo bahalkii ma garanaysa in rag dee aqoon leh oo siyaasiyiina inay yiraahdaan ma jirin taas waa ta kale aan ka hadlayo waxa weeye halganka dalku halganku kama bilaamin asanam oo qura halganku kama bilaamin Soomaaliland oo kaliya dalka intaas oo jiil intaas oo boqortooyo intaas oo qabiil ayaa jiilba jiil soo bedelay maanta anu boqortooyadan ka tirsanahay magaad dagaal weyn oo halgan weyn ba ku gashay wadankan waxay ka kicisay axmaaro waxay ka kicisay xabashi waxay ka kicisay wadankaas oo dadkii oo dhan halgankii waa la garanayaa dagaalo aad u badan oo halgankii waxay halganka ku jireen ilaa 300 oo qarni ilaa in gaaraysa ay boqortooyadii halganka ay waday marka taana halganka wadanka de loo soo maray inaanay halganku ahayn asanam ka bilaabmin ee wadankan dad baan u soo halgameen wadanku de taariikh halgan uu leeyahay mid islaam mid qabiil mid boqortooyo mid caankaas waxyaabaha maanta aan doonayo inaan iyana bilaf gareeyo inaanay dadkan haday maamul tahay dawlad hadii ay tahay dadkan taariikhdooda in loo sheego anagu taariikhdiini baan nahay inaad ilaashataan boqortooyada waxaan u sameeynay markii reerkii deyntii u badnayd ay halgamada iyo dagaalada ay ku barbaxeen ay ku go'een inta yara hadhay inaanu ku ururino halkii reerka taariikhdeedii aan ku ururin lahayn idinku aad taariikh ka dhigan lahaydeen ku faani lahaydeen in maanta rag siyaasiyiin yiraahdaan maba jirto taariikh ma boqortooyada ku horeysay ma jirto waa ayaan daro aad baan uga xunahay boqortooyadii buu laabay cali guray wanaanu saaxiibanahay oo nin aad u wanaagsan waa nin reerka yaqaan waa nin reerka garanaya ma doonayo isaga inaan malihi uu khalday waxana waxa dhici karta inuu laabay sixitaan inaan saxo idhaahdo warway jirtay waayo media baxay waayo cali guray waa la taliyaha arrimaha bulshada ee madaxweynaha bulshadan oo dhan buu ka yahay mas'uulkii marka bulshadu mas'uulka ka ahaa baan ka mid halkan doonaya inaan idhaahdo ilaaliyo inuu sheego boqortooyadii Sheekh Saxaaq dalkan ugu yimi ee abaalka ku lahayd ee dejisay ee xooleysay ee u guurisay ee la xididay